Assalaamu calaykum dhammaan taageerayaasha ku xiran kanaalka. Maanta waxaan bilaabaynaa taxane cusub oo aad horey nooga codsateen, kaas oo aan ku qeexayno boqolka lacagood ee ugu sarreeya adduunka ee kriptoga. Si aan u bilowno si rasmi ah, maanta waxaynu si qoto dheer u eegaynaa boqorka suuqa waa Bitcoin BTC. Waa maxay Bitcoin? Yaa abuuray? Sidee bay u shaqaysaa? Iyo sababta ay dunida ugu waalatay. Haddii aad tahay qof doonaya inuu fahmo lacagtan dijitaalka ah, amaba aad tahay maalgashade cusub, fiidiyowgani adiga ayaan kugu talagalnay. Dhammaadka fiidiyowgana waxaad si cad u ogaan doontaa waxa uu yahay Bitcoin. Aan u galno faahfaahinta. Yaa abuuray ama yaa sameeyey? Si aad u fahamto Bitcoin, waa inaad dib ugu laabataa sanadkii 2008. Dunidu waxay ku jirtay dhibaato dhaqaale oo aad u weyn, taas oo ay sababeen bangiyada waaweyn. Waqtigaa, nin amaba koox adeegsanaysa magaca curiska ah ee Satoshi Nakamoto ayaa soo saartay warqad cilmiyeed white paper oo lagu magacaabo Bitcoin ee peer-to-peer electronic cash system. Bishii Janaayo 2009, Satoshi wuxuu soo saaray bloggii ugu horreeyay ee Bitcoin oo loo yaqiinay Genesis block. Waxa ugu yaabka badan waa in aqoonsiga dhabta ah ee Satoshi Nakamoto uusan weli qofna aqoon. Sanadkii 2010 ayuu si gebi ahaan isaga fadhiistay hawsha oo uu internetka ka baxay, isaga oo ka tegay shabakad madax bannaan oo maanta qiimaheedu yahay $100 bilyan. Ujeeddada ugu weyn ee loo abuuray Bitcoin waxay ahayd in laga maarmo dhexdhexaadiyeyaasha sida bangiyada iyo dowladaha, kuwa oo maamula lacagaha caadiga ah ee fiat currency-ga loo yaqaan, oo ay dhibaato ku soo gaari karto marka sicir bararku dhaco. Sidee bay u shaqaysaa tiknoolajiyadda Bitcoin? Hadda bal aan eegno si ay farsamo ahaan u shaqayso. Bitcoin waxay ku salaysan tahay tiknoolajiyadda la yiraahdo blockchain, oo macnaheedu yahay silsilad xanibaado ah. Bal qiyaas buug xisaabeed weyn oo ay hal mar wadaagaan kumanaan kombuyuutar oo adduunka ku kala baahsan. Mar kasta oo lacag la isugu diro, macmiilkaas waxaa la xaqiijiyaa, waxaa lagu daraa buugaas. Ma jiro qof hal meel ka xukuma amaba bedeli kara xogta ku jirta. Nidaamkan waxaa lagu ilaaliyaa hab la yiraahdo proof of work. Halkan waxaa ka dhex muuqda dadka loo yaqaan macdan qodayaasha miners. Waa dad isticmaala kombuyuutarro aad u xoog badan oo xalliya xisaabo adag si ay u oggolaadaan macmiil cusub. Marka ay xalliyaan, waxaa lagu abaalmariyaa Bitcoin cusub. Sidoo kale, hal arrin oo gaar ah oo ku jirta Bitcoin waa halving, kala bardhig 4 sannadood mar. Abaalmarinta ay helaan macdan qodayaasha waa la dhimaa kala bar. Tani waxay yaraysaa tirada Bitcoin ee cusub ee suuqa soo gasha, taas oo ka dhigaysa mid sii yaraata, qiimaheeduna kor u kaca. Dhaqaalaha Bitcoin maximum supply. Qodobka ugu xooggan ee Bitcoin waa tokenomicskeeda amaba qaab dhismeedkeeda dhaqaale. Maximum supply. Ebid waxaa jiri doona amaba la soo saari doonaa ebid keliya 21 milyan oo Bitcoin ah. Marka la gaaro sanadka 2140, Bitcoin-kii ugu dambeeyay ayaa la soo saari doonaa. Mana jiri doona mid kale oo la abuuri karo. Kani waa farqi weyn oo u dhexeeya lacagaha dowladaha sida dollarka ama yuuraha, kuwa oo dowladuhu ay daabacan karaan mar kasta oo ay doonaan, taas oo keeni karta sicir barar. Satoshi. Sababta oo ah Bitcoin waa mid qaali ah. Bitcoin kasta waxaa loo qaybin karaa qaybo aad u yaryar.
qaybta ugu yar waxaa loogu magac daray Satoshi. Bitcoin wuxuu ka kooban yahay 100 milyan oo Satoshi, taas oo micnaheedu waa inaysan ku qasbanayn inaad iibsato hal Bitcoin oo dhan. Waxaad iibsan kartaa waxa ugu dhigma $10 ama $20 oo Bitcoin ah. Market cap-ka Bitcoin. Maanta Bitcoin waa hantida koowaad ee ugu weyn suuqa crypto, iyadoo leh market cap ama qiimo guud oo suuqa ku jira oo gaaraya $100 bilyan ilaa $1 trillion, taa oo ka dhigaysa mid ka mid ah amaba ka weyn shirkadaha ugu waaweyn adduunka sida Apple ama Microsoft. Faa'iidada iyo khasaaraha. Haddaba maxay yihiin faa'iidooyinka iyo dhibaatooyinka ay leedahay Bitcoin? Aan ku hormarno faa'iidooyinka. Faa'iidooyinkeedu waxaa ka mid ah baahin decentralized. Ma jiro bangi, madaxweyne amaba dowlad xukumi karta amaba xanibi karta xisaabtaada. Amni sare. Tan iyo 2009kii shabakadda Bitcoin weli lama jabsan hal mar oo lama xadin lacag ka timid shabakadeeda asaasiga. Qiimo koror. Taariikh ahaan, qofkii Bitcoin iibsaday sanadihii hore wuxuu arkay faa'iidooyin aan caadi ahayn. Dhibaatooyinka iyo khataraha ay leedahay Bitcoin. Isbedelada volatility. Qiimaha Bitcoin wuxuu soo boodboodaa, maalin ayuu kor u kacaa, maalin kalena si xun ayuu hoos ugu dhacaa, taa oo sababi karta dadka aan adkaysiga lahayn inay ka cararaan. Xawaaraha. Macmiilka Bitcoin wuxuu qaadan karaa dhowr daqiiqo amaba saacado marka la barbar dhigo lacagaha cusub ee isla markiiba taga meesha loo diro. Tamar. Kombuyuutarada waaweyn ee shaqeeya waxay cunaan koronto badan, taas oo dood ka dhalisay dhinaca deegaanka. Mustaqbalka Bitcoin maxaa la rajaynayaa? Halkee bay Bitcoin u socotaa mustaqbalka? Maanta waxaa la arkay shirkado waaweyn oo maalgashadayaal hanti maaliyadeed ah iyo xitaa dowlado qaarkood oo bilaabay inay Bitcoin kayd ahaan u iibsadaan. Sidoo kale waxaa la dhisay nidaamyo cusub sida Lightning Network oo xalinaya dhibaatadii xawaaraha ka dhigana mid aad u degdeg badan. Si kastaba ha ahaatee, xusuusnow inaysan tani ahayn talo maalgashi financial advice. Crypto waa meel khatar badan leh. Had iyo jeer samee cilmi baaristaada ku gaarka ah ka hor inta aadan lacagtaada gelin. Hadda adiga ayay arrintu ku taal. Adigu ma haysataa Bitcoin mise waxaad u aragtaa mid khatar badan oo aan la isku halayn karin? Aragtidaada noogu reeb faallooyinka. Haddii aad ka heshay fiidiyowgan, ha iloobin inaad like saarto, subscribe-na noo dhahdo kanaalka si aysan kuu seegin qaybta labaad ee aan ku eegi doono lacagta labaad ee ugu weyn suuqa. Nabadgelyo dhammaantiin.